بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaynu iska furaynaa shirkeennii ku saabsanaa wax soo saarka calafka xoolaha iyo kaydintiisa oo ay ka qayb galayaan shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dadka beneficiarieska ah ee ka kala socda sayidadka ay ka shaqeynayso mashruuca barwaaqo project ee Soomaaliland shaqaalaha halkan isugu yimi waxay ka kala yimaadeen saddex gobol ee bari sool sanaag iyo togdheer ayaa dadka faa'iideysanaya ka wasaar xanaanada xoolaha ahaan anagoo matelayna wasaaradda xanaanada xoolaha qaybteeda mashruuca barwaaqo saaka halka waxaanu joognaa inaanu ka qayb galno aqoon isweydaarsi ku saabsan wax soo saarka calafka xoolaha beeristiisa kaydintiisa iyo tayeyntiisaba marka mashruuca barwaaqo guud ahaan haddaan idinka in yar idinka siiyo warbixina markii koowaad kolleyba maaha oon isla howlkan ku qabano tababar inkastuu ka duwanaa ka calafka xoolaha insha allah noqon mayso markii u dambeysay ee waxa jiri doona tababaro kale guud ahaan barwaaqo waxay ka kooban tahay mashruuc ahaan asagoo bedelay magacii hore ee biyoole wuxuu ka kooban yahay ilaa 4 qaybood amba component waxa la yiraahdo qayb ay biyo hogaaminayso oo dhaamamka iyo qodistooda xoolaha iyo beeraha oo ka shaqeyn doona halka dhaamka laga qoday iyo inta ku wareegsan iyo community-ga oo tababarna ku dhex jiraan marka waa ka kaynu iminka inagu aynu focus gareynayna ku dhex jirnaa waxa iyaduba jirta qayb deegaanka iyo qayb qorsheynta M&E ama monitoring and evaluation marka hadeenteena u soo noqono component-keena inagoo hirgelinayna livelihood-ka ku saabsan ayaa maanta waxaan halkan ku qaadanaynaa siiba saddexda gobol ee bariga ee Sool iyo Sanaag iyo Togdheerba oo in halkan ku joogno oo mid walba ay ka socdeen xubno iyo oo afara isduwaasha ay ku jiraan sidaan jecelahay waxa kaloo jira xubno lagu xoojiyo kolleyba iyaguna xarunta iyo shaqaalihii dhowr ka mid ah mashruuca barwaaqo casharada lagu qaadanayo wax soo saarka calafka xoolaha waxa ku dheeraan maayo waxay noo jooga facilitators halkan fadhiya Ridwaan iyo Maxamuud sida magacyaduba aad isbaran doontaan ayaga ayaynu maaragtay casharada uga martinahay kaliya waxaan idinku dardaarayaa in la weeleeyo aqoonta iyada ah waxa kaloo inala jooga oo hawlaha isuduwihii xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer oo isaguna halkan inagu martigeliyay aad iyo aad u mahadsan yahay Said Cali iyo gudoomiyii xigeenka gobolka in sugayno waxaan doonayaa inaan meelaysaan u dardaaranku wixii hadal badan maaha in aqoonta halkan laga faa'iido ama waxyaabihii laga kororsado in la sii sheer gareeyo cid waliba deegaanka ay matalaysay ay u sii gudbiso waxaan sidaa u leeyahay mashruuca barwaaqo wuxuu leeyahay dad badan oo loo bixiyay beneficiaries ama ka faa'iideystayaal tiradoodu way badan tahay tirada la leeyahay sida ku soo baxaysa ay u badan tahay waxa weeye mar walba hadii ay 20 iyo 20 qof ka soo qayb galaan waxay u dhaqmayaan sidii qaab TOT oo inay iyaguna wax sii tababaraan oo ay u sii faa'iideeyaan sida la ajligeed ayay aqoontu noqonaysaa wixii halkan ka faa'iidaan idinkuna inuu deegaamadii marka ku laabataan aad uga sii faa'iideysaan oo qof waliba inuu noqdo training of tutors oo deegaankii markuu kula noqdo uu isaguna uga sii faa'iideeyo deegaankii uu ka yimid sidaas ayuun baan ku gaaraysaa dadkii badnaa ee leenahay waa beneficiarieskii ama targetkii la target gareeyay mashruuca barwaaqo target gareeyay sidaas inta badan faa'iidadu ku imanaysaa marka waxa ka yar ku dardaaraya casharada waan idin kala hadlay waxaan idin facilitators u tababaran aqoonteedii laba halkan ku bixin doona wixii discussion iyo su'aalaha practical way jiri doontaa iyadana banki aroori ayaa isagana iyo seeriheen ayaa la tagi doonaa waxaasoo dhanba intii la meeleeyo
ayaan jecelahay in loo sii gudbiyo cid waliba deegaankii maaragtay ay ka timid ay wax u sii gudbiso sii gudbinta iyada ah sunnaha caadigaa bay ka mid tahay waxaanu naqaanaa maadaamaaynu nahay ummatu maxamed ama ummaddii nebi maxamed waxaynu la gaarnahay oo laynoo siiyey alxasanatu bicashri amhaaliha inay xasanadu laynoo 10 laabo oo midiba ay u tahay 10 laab sidaas oo kale idagana waxa laynaga rabaa sida salaadaha faradka oo kale 5 salaadood ee maalintii tukanno cindallaahi maktuuba inay u dhiganto 50 salaadood waxaan doonaynaa wixii aynu faa'iidno sunnaheena ayaa ah inagu inaynu sii gudbino si ay dad badan u gaadho tababarkan maanta halkan aynu u fadhino ee wasaaradda xanaanada xoolaha ay fulinayso maalgashigeedana World Bank runtii uu maalgelinayo mashruuca la yiraahdo barwaaqo muhiimad weyn buu qarankan iyo gobolkaba u leeyahay marka ina gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland awdal iyo togdheer sool sanaag iyo togdheer maanta halkan ay fadhiyaan deegaankii iyo shaqaalihii wasaaraduna ay goobjoog yihiin marka inteenaas aan iskaashano tababarkan waxa loo baahan yahay in laga faa'iideeyo oo dadka aynu ka nimi loo faa'iideeyo gobolkan waa gobol runtii xoolo dhaqataa tababaradan iyo kuwa kaleba inay mar walba lagu qabtaan muhiimad gaar ah leedahay shayga aqoonta u leedahay baad wax ka taraysa maadaama gobolkeenu gobol xoolo dhaqataa yahay wasaaraddan waxaan ku boorinaynaa mar walba in tababarada iyo aqoonta kor loogu qaado shaqaalaha iyo meelaha xoolo dhaqatada ee deegaamada sababta wax weyn buu ka taraya qofku inuu noloshan ama calaf ha noqoto ama xoolaha ha noqotee runtii uu wax weyn ka qabto marka mar labaad iyo mar saddexaad wasaaradda u mahad celinaynaa wasaaraddu door weyn bay ku leedahay qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland xoolahana wax weyn gacan weyn bay runtii ka qabatay waanu mahad celinaynaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo shaqaale weynaha wasaaradda muddadii ay xilka hayeen intii aanu gobolkan joognay inay heegan buuxa u ahaayeen wasaaradda caafimaadku inay meel walba gaarsiiso tiima moobela iyo tababaradii iyo talaalkii xoolaha mar walba waan idinka mahad celinaynaa halkana waxa looga baahan yahay maanta madii tababar la siiyay oo muddo ka faa'iideysanaysaan aqoonta inaad dib ugu celisaan deegaamadii aad ka timaadeen si uu waxtar u noqdo mid ka duwan oo ka dambeeyo ka tayo badan aynu aqoon kalena u qaadano marka dambe marka faa'iido weyn baa ku jirta waan idinku boorinaynaa ka soo qaybgalkiina wasaaradda iyo mashruucan barwaaqo ee World Bank uu fulinayana waan uga mahad celinaynaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan salaamayaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka togdheer agaasimaha waaxda productionka ee wasaaradda xanaanada xoolaha madaxa mashruuca barwaaqo ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhammaan dhakhaatiirta iyo mudanayaasha ka soo qayb galay tababarka marka labaad tababarka insha Allah waa inoo firan yahay tababarkan wuxuu ku saabsan yahay saad ogtihiinba wax soo saarka calafka xoolaha kaydintiisa habeentiisa iyo qodobka labaad oo ah maareynta iyo maamulka dhul daaqsimeedka oo badanaa ka yimaadaan khilaafaad badan iyo dhibaatooyin badan marka insha Allah tababarka marka qaadataan oo tababar muhiim ah oo calafku waayo waxyaabo ugu muhiimsan maadaama dhulkeenu abaaru ku soo noqnoqdaan dhibaatooyinka dhul daaqsimeedka ku soo noqnoqdaan waxa la doonayaa insha Allah in xoog saartaan saad uga faa'iideysan lahaydeen iyo hadhow marka insha Allah ku noqotaan meelihiina aad ku qayb qaadan lahaydeen oo marka labaad iyaguna waxa muhiim in practicalka ka soo qaadanaysaan Aroori Livestock Center waad helaysaan wixii practical loo sameeyay shaqadii la qabtay taasna ka caawinaysa insha Allah aqoontiina in kor u sii kacdo marka aanu intaasan ku soo gabagabeynay ama baad inta marka hore waxa Ilaahay baa mahad u sugnaatay isku keenay halkan inaga oo wada nabad qabna
salaan ka bacdi waxaan halkan isku soo taagay waxa kelmad dardaarana intiinaas waxaad wadato message halka ka qaadaan horta muddo koobaad waa inaad tababarkaasi intuu socdo aad waqtiga ilaalisaan tababarkaasi intuu socdo waqtiga ilaalisaan waxaad tihiin saraakiil ka socda gobolada Sool Sanaag iyo Togdheer iyo xaruntii waxdad aqoon waxaan tababarkan barnaamijsan aqoonteedii la watiin laakiin aqoon isweydaarsi iniga laftiin waxba iniga imanaya facilitatorsan waxba ka imanaya waxa halka la sheego waa in la sii gaarsiiyo hadhow dadkii bulshadeennii Soomaaliland insha Allah madaba waxa tababarkaas oo ah sidii loo habeeniyay calafka xoolaha loo soo saariyay loo keedinayay kaas oo yeelan doona practical iyo theory-ba marka kelmad aan igula dardaarmaya waana sideedii uga faa'iideysataan message-kan hadhow meelaad ka timaadaan sideedii ugu gudbisaan